waa kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin la wadaago qarax qasaaro geystay oo ka dhacay magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan iyo waliba sidoo kale faahfaahino kala duwan oo halkaas ka soo baxaya qasaaro fara badan ayaa jira halkaas dhimasho iyo waliba sidoo kale dhaawac aad u fara badan iyadoo markaas goob maqaacid ah ee lagu qadeynayay misna markaas lagu shaaheeyo inta badan ay isugu yimaadaan dhalinyarada xaafadu oo qarax bambaano halkaas lagu la beegsaday xogtaasi oo dhameystiran iyo waliba wararkii ka soo kordhaya rabaa in halka kugula wadaago hadii ay tahay markii ugu horeyso uu ku soo gaaro muuqaalka fadlan noo like oo share gare si meel dheer u gaaro mahasanidiin bogan hadii ay tahay markii ugu horeyso oo aad aragto fadlan soo raac ka mid noqo saaxiibadeena sida maalilaha ay halkaan ugu xiran magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan waxa ka dhacay duhurnimadii maanta qarax bambaano ah oo lala beegsaday dhalinyaro meel markaas iskaga shaaheeynayay meel maqaacid ah oo halkaasi inta badan ay soo guuxiyaan dhalinyarada xaafada ayaana miino bambaano ah markaas lala beegsaday waxaana jiraan ilaahda qasaare isugu jira dhimasho iyo waliba sidoo kale dhaawac taasi oo markaas sababtay in markaas ay aad u farabataan dhaawacyada halkaasi tirada rasmiga wali si sax loo ma dhawaaqin laakiin inta hordhac ah ee la helay ayaa sheegaya in markaas ay kor u sii dhaafayso 7 faahfaahinada dheeraadka ee ka soo baxaya qaraxa ee ka dhacay magaalada Beledweyne kaasi oo markaas geystay qasaare isugu jira amsana qasaare kala duwan oo aad u fara badan qaraxaasi oo ahaa bambaano ayaana waxa uu ka dhacay xaafada Howlwadaag oo markaas ee magaalada Beledweyne gaar ahaan maqaacid markaas inta badan ay fariistaan dhalinyaro ay isaga shaahida ee xaafada deegaankaasi ilaa ay hadda lama xaqiijinin qasaaraha rasmiga ah ee ka dhacay ee markaas uu geystay qaraxaasi gaar ahaan tirada ay hadda qofka markaas ku dhintay waa hal qof halka markaas 7 kalena ay ku dhaawacmeen inta markaas la xaqiijiyay dhaawacyadii ee halkaasi ay ka soo gaartay ayaa loo qaaday goobaha caafimaadka halkaasi oo lagu dabiibayo caafimaadkooda iyadoona markaasi ee goobta qaraxa uu ka dhacay markaasi ay gaareen ciidamo kala duwan si markaasi loo sugo ammaanka halkaasi walow si rasmi ah markaasi looga hadlin inkastoo qaraxa ay markaasi imaanayda xilli maqaacidu markaas ay si weyn ay u soo guuxdaafiyaan tiro dhalinyaro oo halkaasi ee magaalada inta badan laga yaqaano halka markaasi ay sheegayaan dadku in markaasi lala beegsaday dhalinyaradaasi oo aan waxba galabsanin qaraxaasina markaasi saameeyay misana saameyn weyn uu ku yeeshay in markaas inta tiro leeg markaasi ku dhaawanto waxaana sidoo kale jira dhaawacyada oo aad markaasi qaarkoodu ay xaaladooda aad u culus tahay halka kuwa kale markaasi ay yihiin kuwa markaasi xaaladoodu lagu dabiibayo isbitaalada magaaladaasi waxaana mudooyinkii ugu dambeeyay si weyn looga nastay magaalada Beledweyne guud ahaan Hirshabelle qaraxyadii kala duwan ay ka geysan jireen kooxda AS iyadoo la arkaya waqtiyadan dambe in markaasi si weyn ay u soo guuxdaafinayaan markaasi ismiidaaminta iyo waliba sidoo kale ka faa'iideysiga kooxda AS dhalinyarada Soomaaliyeed ee aan waxba galabsan misna siyaasad aan la kulahayn inay markaasi ay beegsadaan taasi oo keentay in waqtigan la jooga dhalinyaradu ay si weyn markaasi uga baqaan amniga magaalada Beledweyne mudooyinkii ugu dambeeyay aad ayuu u wanaagsan laakiin waxa la arkayaa in hadda uu yahay mid markaasi qalqal gelinayo taasi oo markaasi keentay kala qaybsanaanta dadka iyo waliba sidoo kale siyaasiyiinta ee kala aragtida duwan ee kala dilaya dadka Soomaaliyeed oo saameyn weyn ku yeelanayso in uu markaasi ay ka faa'iideystaan cadawga kooxda AS